madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa golaha guurtida u gudbiyay warqad uu kaga codsanayo in dib loogu dhigo doorashada madaxtinimada ee waddanka Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa shirgudoonka golaha guurtida u gudbiyay dib u dhac ku yimid doorashada madaxtooyada oo ahayd inay qabsoonto bisha Maarch ee sanadkani. warqadani uu madaxweyne Axmed Silaanyo u gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland oo nuqul ka mid aanu helay waxay u dhigneed sidani: mudanayaal waxaan idila socodsiinayaa in 25kii bishii koowaad ee sanadkani ay kulan wadajir ay isku yimaadeen madaxda saddexda xisbi qaran iyo xubnaha guddida doorashooyinka qaranka. kulankaasi oo goobjoog ka ahaa waxaa lagu gorfeeyay xaaladda abaarta dalka ku soo korodhay iyo xal u helidda doorashooyinka kala dambeeya ee waddanka Soomaaliland la filayo inay ka qabsoomaan dabayaaqada sanadkani. gunaanadkii shirkaasi ballaaran ee wadatashi waxaa ka soo baxay soo jeedimahan hoos ku qoran ayaa lagu yidhi warqadani codsiga uu madaxweynuhu u diray mudanayaasha golaha guurtida in doorashada madaxtooyadu dib u dhacday abaaraha baahsan awgeed lana qabto taariikhdu marka ay tahay 10 bisha tobnaad ee 2017 in doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ay qabsoomaan isku waqti kuna taariikhaysan 10 bisha tobnaad 2018. waxa kale oo warqadani madaxweynaha Soomaaliland u diray mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ku xardhanayd oo lagu soo gudbiyay qaraaro uu madaxweynuhu mudanayaasha kula socodsiinayo go'aanka golaha wakiiladu ku ansixiyeen kala qaadista doorashada golayaasha wakiilada iyo madaxtooyada iyo qaraaradii kale ee maxkamadda dastuuriga ah hore loogu gudbiyay ee kala ahaa qaraar fasiraad, qaraar dib u eegis iyo qaraar kale oo dib u eegis. kala fadhiga golaha guurtida Soomaaliland ayaa la filayaa inuu si toos ah u furmo 23 bishan labaad ee sanadka 2017 iyadoo aan la saadaalin karin in mudanayaashu ay ixtiraami doonaan isafgaradka ay gaadheen xisbiyada iyo guddida doorashooyinka qaranka oo ay muddo kordhinta madaxweynuhu noqon doonto sida ay hore u iclaamiyeen iyo inay dhabada u xaari doonaan muddo kordhin dheeraad ah oo ay golaha guurtida Soomaaliland u sameeyaan xukuumadda Soomaaliland ee hadda madaxweyne Silaanyo.